السلام عليكم حسن. عليكم السلام. ايام waxaan kugu idhi caadi iska bariyahan life soo gelin oo life markaan soo galo moogta waa godod badanaya kubadhinac. Yeah. Ayaam on the topic imika wixii laga bilaabo kama leexanayo sanqiiqoo kabacdi oo ku jirno waxaan ku idhi topican saarnaanaynaa kama leexanayno. Xasan aad iyo aad baan ku salaamaya waana kusoo dhaweynayaa topicana toos gudagal waad ogeyd farmaajo maxay kula tahay adiga aragtidaada soo daa aadna waan kusoo dhaweynaya. أنا برضو هاي الوطن الصومالية هم بنادين الصلاة يا من الإسلام يوان بعد الدين هذا الصورة ونحن في سورة بولس ركين وهوية هم الله مقصد صوب عليه عن الكريمة في من مقاصد الحياة الجديدة الصومالية على لا يسمعوا صبي ومقاصد وكليات الصوبة وحاول سادة ركين بمقاصد كروانك هاس ومقاصدوني وبلا دور بمقاصد فري ساعد في كوبيا أحمد عادي وإن أول عندي كيس كارف كتصور تجري حالين من سكوتر مركزي إن شعبك إن أقارها يسوعك وحين نقول إذا مثل هوريسي متصل ساعة أو مركزي من فريق صومالية بما يحتوي على سكوتر إن حديثة وما كجملة إن أصلا جملة سوماليلاند وإن أركتي دكتور كاسي هذا المسلم في هاي دكتور كاسي سوماليلاند إن روان هاي صوت وينيا وعن كمل هاي صوت وينيا ويوم التصوت صار بين عروس ومالو اللي استمع يستو أنا ما يسمع كاسي في كفورة هاتي الكارين كم أي فورا كان أوكي دالي وحضرهم استدنا يدنا ودو ودريس وفحرنا الجيران والبرعاني هو يشوفين ويري أوكي أساسوات الصوماليين let's talk أمور هذا الله ومهم وحيان درا كاسي نقطة صوماليين أو إن أفكر هذا كولا هلا إسمعنا إسكتينا إسكتيع إن حدنا تذكر أي مانت إن حاليا أو ولا هلا إلى هذا إنه إنه كمان ولا تنيشين تكو هلا إلى هذا أوكي كويكو please talk to this guy إلى هذا معنا تاسع عيان درا أبوك هاي وحكم بدنا هاي حتى أي madaxda markaas Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay markaa gartaan inay iyagu hoostiisa ku yimaadaan oo wixii doonaba ha noqotee inay waxa weeye siyaasadda la isku haystaa dhiig iyo xoolo iyo maxaa ku dhaca adduunya lama kala dhigin siyaasadda la isku haystaa siyaasadda iyo difference u dhaxeeya dhinaca dhigtaan baa ka furfadnay taasi laakiin bay dhibin maanta waxa weeyaan waa dawlad shisheeye ayaa wadata kasabtay ku tahay Soomaaliya iyo Somaliland ba inay maxaa ku dhacdaa ay u hoggaansamaan oo markaasi ay dhinac xaaladan markaa dhinacba u dhaqaaqooday muddo 30 sano in la dhaqaajiyo dad badan oo runtii aan la xiriiray iyo dadka basaas saxaafadda kaarkiisaaba way soo dhaweynayaan waxaa dhageysanaya maxay ka tahay Soomaaliya iyo Somaliland ileen waynu ognahay muddo 30 sano ayay ummadda sicinaayeen shacabka sicinaya xasano oo ay shacabkii nolol u diideen oo aynu ogeyn yacni sircayo baranbarkan ku nololeen ogeyn maanta maxay kula tahay marka madal shisheeye ay ka baqayaan oo badanta dalshay ka baqayaan ay isugu imanayaan oo ay doonayaan inay yani u heshiiyaan mise waxay u heshiinayaan ummadooda iyo shacabkooda dhibaatada soddonka sano ku wadeen inay uga taliyaan horta aragtidayda in haddii ay caqligaasi keenayaan ama fikirkaas ay keenayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed muddadaas 30 sano ayay mar laga lahaa bayjibintaasi taas waxay ku caddaynaysaa in maxaa ku dhaha uu yahay fikirkani fikir markaasi cidii doonaba in ha codsato oo ka codsato markaan isoo saaraha dalka Ethiopia oo markaasi isbedel badan dalkiisa ka muujiyay xaaladii laftiisa markii muddada 30 sano ay la tiriyay Ethiopia u dhaxaysay soo xaliyay una arkay markaa xaaladda Soomaaliya iyo Somaliland inay tahay mid basiida maadaama Eritrea la xaliyay ay noqotay markaas in uu iyaga isku keenay waxay ahayd mid ay wadatay dowladda Ethiopia ayna diidi karin sinaba maxaa ku dhacda Jamhuuriyadda Somaliland haddii ay diidana ay noqon karto markaasi isolated marraba markaa shacabkiisu inay noqdaan isolated oo relationship iyo cilaaqaadka soo jireenka markaa Somaliland iyo Ethiopia u dhaxeeya hadday tahay dhinaca waxbarashada ganacsiga iyo scholarshipka ay siisto markaasi Somaliland inay noqonayso waxyaabo badan oo markaa ay sheegaan marka mar walba way ku kasbanayaan in ay dalabka Ahmed Abi ay weeyaan ay yeelaan waanan arki doonaa maaha wax maxaa ku dhaca Soomaalidu ay ka shaqeysay waa wax ay ajnabi ku shaqeeyeen oo Soomaalidu ay maanta ku kulmayaan waana ayaan daro
ayaan darro makamiyana ahayn siyaasiyiinta soomaaliyeed intay muddooda sacinayeen oo dhibaatada ku wadeen maanta inuu inan yaroo 40 jir ahi maanta inuu u taliyo maskaxda noqdo oo wado daba yacaan miyaanay ayaan darro iyo foolxumo aad weynu ahayn waa horta waa ayaan darro waa meesha ay qabyaaladu ka dhigtay waa nasiibada ummadda soomaaliyeed ama qoomiyadda soomaalida ama kuwii ku dhacday inay iyaku isbirstaan inay iyaku isfaadfuraan inay iyaku maxaan ku dhahdaa gud isku qodaan inay iyaku xabaala isku qodaan laakiinse marka ay arkaan qof ajnabiya oo la hadlo uu farta ugu yeedhin karo waxna ugu yeedhin karo tanaa ku cadaynaysa waayo muddo 30 saaca ayaa maxaan ku dhaha ummadda lala beeraysanayay dhinacan uquud diyaaradda raac laakiin waxaa la keli waayey in maxaan ku dhahdaa ayagu yidhahdaan wixii doona baan ahaano awoodi meeshay doonta waxaan hayno dhibto waxaan doona baan isku hayno the let's talk xitaa aan ku kala kacano aan geed hoos jiritano taamay jiran laakiin maanta waxaa u gartay maxaan ku dhahdaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia waana ku qasbay in labaduba maxaan ku dhahaa in sidii la dabacsan yahay marka Ethiopia ay dabacsan tahay inay yeelaan inaan waxba runta laga gudbin waxaan arkay xasan oo kaas ayla dhex gale waxaan arkay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland in Salibaan Gaab oo qof aad iyo aad u weyn oday aad iyo aad u weyn waxaan aad iyo aad uga naxo iga yaabiyey waxay ahayd intuu soo fadhiistay uu yidhi abi axmed baa noo soo wadee naga qabo oo naga joogle dee abi hadduu noo wado noo keeno miyaanu diidi karnaa waa inaan abina soo dhaweyna isagana maxaynu ka yeelna buu yidhi ma fahanta dhegayso marka eeg abi buu ku leeyahay abi baa wuxuu abi inoo wado ma diidi karayno de abi baa inoo wada marka abi waynu soo dhaweynaynaa maxaynu isaga ku samaynaa marka maynu soo dhaweynaa buu ku leeyahay wallaahi waan dhegaystay Salibaan Somaliland hadalkiisii tabada wax diblomaasiyada kala muuqan waxa uu ahaa siduu u hadlayay si run ahaantii jeesta oonan maxaan ku dhahdaa masayr aan ummad Soomaaliyeed aan ka turjumi karin baan odhan karnaa waxa weeye Somaliland marka la eego waxay u noqonaysaa sharaf weyn iyo maqaam weyn bay u noqonaysaa marka ay noqoto siyaasad ahaan in maxaan ku dhahdaa madax markaa Soomaaliya madax maxaan ku dhahdaa wadan ama ra-iisul wasaare wadan meeshuu doonaba ahaaday inuu Somaliland ku yimaado waxyaaba badan baa markaa furmaya sida doonaanba hadalladu ha u dhacaan mar walba waxay tahay markaasi guul ahaan haddii la fiiriyo in xitaa maxaan ku dhahaa Somaliland ay guul u tahay in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu hargeysa kasoo dego taasina ay wax badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo aaminaada ay furfuri karto marka hadalka Salibaan wuxuu iska ahaa mid aan ahaantii aanan diblomaasiyadi weyn ku dheenay muujinayana markaasi isagoo le macnaha haddii uu yimaado farmaajo dee sidii guud Soomaaliyeed wuxuu usoo dhoweyna madaxweyne ahaan uma aqoon doono waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya aan idhaahdo federaalka Soomaaliya waa wadan la aqoonsan yahay Soomaaliya oo dhan baa madaxu ka yahay maaha waqti haadirka aqoonsi u baahan walow isaga laftiisa aan odhan karno maxaa kusoo beegay waqtigan 3 sana ayuu talada hayay maxaa waqtigan oo kale kusoo beegay aan odhan karno dadka markaa siyaasadda u duldaboolo Soomaalidu ay hadda u arkayaan maxaan ku dhaha wax lala soo daahay iyo dhaqdhaqaaq lala soo daahay oo ahayd oo horay bilaabo haddii la rabo in laga mirdhaliyo laakiin waxaa la odhan karaa campaign-ka unba ku hagaajisanayaa baa la odhan karaa laftiisa taa waynu ognahay inuu la soo daahay oo muddo 3 sano uu fadhiyay 3 sano oo dhan dee yacni uu geli lahaa qabaabadeeda uu geli lahaa hadduu doonayo inuu dadka wada hadal siiyo oo dadka isdhex geliyo wuu geli lahaa waayo farmaajo siduu sheegtaba waxa weeyaan marka hore isagaa ka mas-uula mas-uuliyaddii dalkan isaga ay wada saaran tahay oo madaxweynaha adduunkuna uu aqoonsan yahay de isagu inuu dalkii oo dhan mas-uul ka wadaya isagoo dalkiisaa mas-uulga ah ayuu arkayay dee dalkii oo kala qaybsan oo qaybi ay niman fadhiyaan oo lagu dhibaataysan yahay wax walba ka sameynaya haddana kama hadal wagii iska aamusnaa maanta wuxuu yidhi waan imanayaa waxaa maanta uu usoo kacay uu yidhi waan u imanaya waxa weeyaan dee olole siyaasadeed iyo inuu doonaya inuu siyaasadiisa iyo ololihiisa doorashada inuu yacni yidhaahdo macani yacni de wadankii qaybtaana waan tegay oo waan booqday waynu fahnay taa hadday iyadoo saa tahay bay haddana waxay tahay yacni guul bay shacabka u tahay aad iyo aad u weyn in tallaabo la dhaqaajiyay isaga hadduu doono hawba hirgasho ololihiisii wixiisa ku hagaajistee haddana waxay u tahay guul bay u tahay ummadda Soomaaliyeed shacabkii yacni in laga dhex qaado tiirkii adkaa ee dhex yaalay ee la dhex dhigay cuqdadii iyo xanuunkii la dhex dhigay in laga dhex qaado aad baan ugu faraxsanahay taa
waxaan aad iyo aad ula yaabay hadallada siyaasiyiinta qaar kasoo yeedhaya siyaasiyiinna ma odhan karo oo dee noocaas oo kale siyaasi markaynu ka dhiganayba oo inaga araxda inaga isku jebin mafaham hadallada kasoo yeedhaya siyaasiyiinta qaar ay ku hadlayaan ay ku qodbadanayaan ayaa aad iyo aad iga yaabiyay waay bay xasanow 24/7ka marka wax yare ay dhacaanba ay dib ugu noqdaan dhibaato xasuuq dad la laayay iyo problem walaal siyaasiyiintu mar walba waxay u tahay iyaga maxaan ku dhahdaa waa business shaqay u tahay tani waxa weeye waxyaaba badan baa xidhmaya hadday dib usku xigaan sidaasoo markaa qof walba oo markaa siyaasi ah oo soomaaliya meel uu meeshu joogaba uu ka doorbidayaa inay deganaasha timaado wuxuu ka doorbidayaa inay xaaladdu kacsanaato tenshinku ay kacsanaato waayo saasuu bishaa ku qaataa inuu hadlo inuu maxaan ku dhaha wax ladaaqo mishaar ku qaataa waa siyaasi soomaaliyeed waanan ogsoonahay siyaasiyiinta soomaaliyeed inay intooda badan markaasi ay ku maxaan ku dhahdaa dhargayaan ay ku macaashayaan markii alla markuu qalalaasi u yimaado markaas ma odhan karno dadkay ka turjumayaan laakiin kulley wax mar walba shacabka soomaaliyeed inay toosaan sida iminkaba ay uga hadlayeen ay u muujiyeen ay yidhaahdeen markaa way habboon tahay in ay u yimaado waana maxaan ku dhahdaa arrin positive oo muddo 60 sano midba ay garan weyday haddii in wax la keenayo deedo oo ay somaliland loo keenayo 60 sano soo dhaafna wuxuu la keeni lahaa mogtahay marka waxa weeye mar walba ixtiraaf in la helo iyo in la isku noqdaa mar walba waxay noqonaysaa dadka soomaalidu inay wada hadlaan siyaasi markuu hadlaayo kama dhex arki kartid siyaasi soomaaliya markuu hadlaayo kama dhex arki kartid danta shacabka soomaaliyeed danta markaasi ummadda markaasi markaa habaalaysan kama dhex arki kartid markaa kumanaanka amase malaayiinta dhalinyarta soomaaliyeed ee wax baranaysa dadkooda kama dhex arki kartid waxaad markaaba ka arki kartaa 2004 qaadanayo in uu difaacayo markaasi oo taasina ay ku xidhan tahay kalalaasa markay timaado lacagtiisu waxaa usii noqonaysaa si kubar mar alla marka xasilooda loo sii gubana agoon buu sii noqonaya mafahant marka wuxuu mar walba siyaasiga soomaali wuxuu isku dayayaa ummaddu inay sideedaa ku jirto oo ay kala taalo oo ay shicibka dhibaatadaas ku furnaato qaybtaa dhinaca loo hayo qaybtaa dhinaca loo hayo because isaga waxaa ku jira xalkiisii iyo shaqadiisii iyo dantiisiiba halkaasay ku jirtaa halkaasay ku jirtaa waxaad ku garanaysaa maanta maamulada soomaaliya jira jubbaland siyaasado maxaan ku dhahdaa soomaaliya waxaad arkaysaa puntland waxaad arkaysaa maxaan ku dhahdaa iiraan waxaad arkaysaa qaybtan maxaan ku dhahdaa galmudug si meel walba waxa waye maamulkeyga iyo nidaamkeygii iyo in ay yidhahdaan aniga ayaa madaxweynaha aniga wax walba igu soo dhacay waxa weeye waa decentralizing way kala daadsan yihiin markaa nin walba halkiisa ayay wax ku gaareen haddii dowladdu ay noqoto in meel quraatay laga maamulo oo maxaan ku dhahdaa meel quraatay siyaasadeedu ay noqoto dad badan oo maanta maxaan ku dhaha taajiriin dad badan oo maanta maxaan ku dhaha wax loo dirsanayo ayaa noqonaya dad aan waxba la weydiin oo waxba loo dirsan waan garta si fiican hadal iyo gunaanadkii xasan maxaad kusoo gabagabeynaysaa maxaad soo odhanaysaa waxaan kusoo gabagabeyn lahaa markay waakaasi noo dhagaysanayaan laakiin waxay noqonaysaa markaasi new era macnaha waqti cusub oo markaa ummadda soomaaliyeed ay gashay aan tijaabino markaa waxa weeya waqtigan bal in ay somaliland soomaaliya wala hadlaan hargeysa la fogo oo wala hadlo waxaan u malaynayaa oo jeclahay markaa in maxaan ku dhaha weji cusub siyaasad cusub iyo maxaan ku dhahdaa isku furfuran cusub markaas in uu inagu soo kooleeyahay siday doonaanba ha u qeeyaan markaa siyaasiyiinta somaliland mar walba waxa qasab ku ah in wixii uu ra-iisul wasaaraha ethiopia uu wato noocay doontaba ha noqotay markay isku eegaan in uu madaxweynaha soomaaliya hargeysa yimaadiyey in dano badan oo markaa somaliland kala dhexeeya ethiopia ay waayaan waxay mar walba doorbidi doonaan in maxaan ku dhahdaa uu yimaado farmaajo waxyaabaha aadka markaasi laysu dhexmaraya waxaa mid ah see lagu soo dhaweyn doonaa waxay noqon doontaa markaasi waxa waayaya markaa muqaamkii iyo 30 sano waxay somaliland ay dhoodhoobaysay miyay waayi doontaa hase ahaatee farmaajo ayaa noqon doona markaas mid maxaan ku dhahaa tanaasula ay noqon doonaan waxyaabaha waxaa mar walba laga aan bulshada qaadan doonaa bal soo qaabka lagu soo dhaweeyo heesaa lagu soo dhaweeyo caalamka lagu soo dhaweeyo ayaa noqon doonta mid dadku aad ay ugu markaa aqal taagayaan ee aadna u rabaan inay arkaan aad iyo aad baad umahadsan tahay xasan aad baan kuu salaamayaa
boqolkiiba boqol. Thank you very much waan ku leeyahay. wixii imika laga bilaabana I will stay on topic. adiga ayaa muuqata aad u Thank you.